runtii wadooyinku horta waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha ku jiraan sida wadooyinka iyo aeroboortada iyo dekedaha wadooyinka cusub ee hadda socda runtii waxay soo saadiyeen horumar la taaban karo aad u ballaaran wadooyinkaas oo dhan hadda laamiga ah oo roobku da'ay saacad walba lagu soconayo iirmay noqon jiray markuu roobku da'o baawrta kala jirta guryaha caadiga oo deegaanka ah waxa laga dhigay bakhaaro iyo carwooyin iyo moolal markii hore magaaladu waxay ku koobneed centralka wadada weyn ee wadnaha bay ku koobneed hadda waxaan oran karaa magaalada aad iyo aad bay u kala baahday wadooyin waaweyn baa la bixiyay laamiyo badan baa meel walba laga bixiyay ganacsiguna inta badan kama marna markii wada la saaro kama marna waxa weeye way wada socdaan markii meel la sameeyo la hagaajiyo laami laga sameeyo ganacsigu waa daba socdaa waa is wada wataan xaafadda wal waxay ahayd meel aan ganacsi lahayn oo loo doonto suuqa weyn injida iyo meelahaas oo kale ganacsiga loo doonto intii la soo saaray laamiga ganacsiga oo dhan baa ku soo xirmay bakhaarradii baa yimi farmashiyaashii baa yimi isbitaalkii baa yimi marka waxay ka qayb qaadatay horumar aad u ballaaran magaaladii koritaankeedii iyo ganacsigii iyo bilicdii intaba aad bay waxay u qaateen kaalin mug leh waa magaaladii magaalo kale ku soo darsantay waa waddo kastoo laamiga dhisid waa magaalo ku soo kordhay weey oo cusub oo ganacsi leh oo wax walba leh marka horumarka aad bay uga qayb qaateen ganacsiga iyo maaragtay iyo fiitaanka magaalada jidadku dabcan markay magaalada dhex marayaan oo magaalada gudaheeda laga hirgeliyo faa'iidooyin badan baa ku jira tan koowaad waxa weeye jidku inuu bilicda magaalada wax badan ka bedelo magaalada caasimadda Garowe runtii oo kaga duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya town plan-keeda iyo jidadkeeda in dadka laamiga markii la saaro quruxdii iyo bilicdii magaalada caasimadda ah oo ah muraayadda Puntland wax badan iska bedelaya horumarka kama socdo Garowe kaliya jidadku meel kasta ka socdaan boosaaso waqtigeeda jidad aan ka yaran inta hadda laga hirgeliyay Garowe ayaa xukuumaddu ka hirgelisay gaalkacaya sidoo kale qarna sidoo kale meelo badan oo jidad ka baxsan sidoo kale